kumanaan qof oo iskugu soo baxay taageerada ciidanka ayaa ka dhacay deegaanka Burdacaare oo dhawaan laga saaray khawaarijta al-shabaab. adiga gafuura duub gargaarley geedayna kala hoos gelshen yawnugu soo gadamira kulankan ayaa waxaa soo agaasimay mid ka mid ah beelaha dega deegaanka. kulankan ayaana ahaa mid ay ugu dambeysay muddo laga joogo 15 sano oo ay khawaarijta al-shabaab ragaadiyeen. kulanka waxaa ka qayb galay dhaqanka beesha dhalinyaro iyo haween oo dhammaan wajiyadooda laga dareemayay farxad iyo hilow. kulanka kadib ayaa waxaa la guddoonsiiyey taliyaha ciidanka booliiska dowladda Hirshabelle Xasan Dhiciso Xasan 3 neef oo geel ah. sagoljiid kula jire gogosha ku joogo ergoley ka maqdhin guula mahadi argaaflanaya mahadhaway waa iska loo heysaa haddii gobolka leesula kacee gool la dhalihaaya midka guusha soo qaadi jiray hadalkan gaarsii haddii se gobolka leesula kaco ee gool la dhalihaaya midka guusha soo qaada jiray hadalkan gaarsii midka guusha soo qaada jiray hadalkan gaarsiiya anna goobta aan galo rabbina gacanuhu daag annase goobta aan galo rabbina gacanuhu daag gadaalkuma dadnaa karo sidii geber masaafaala arkaan madhadidowgey gadiidiyo reeceeyugey gacan baa toog hanoo galiye moodi gacan baa toog hanoo galiye gacan baa toog hanoo galiye gacan baa toog hanoo galiye idinka shaa'ilkii lagu geeyo gibilkiina eebbow kahay gubatanaareed awalba gibilkiina eebbow kahay gubatanaareed awalba awalba guulaas dhamana gaabatiin guri fayaw jooga kubilkiina eebbow kahay gubatanaareed guddoon waana sii gudba wareejinta geelka kadib waxaa kulanka ka hadlay gaashaale sare qoone iyo taliyaha ciidanka booliiska Hirshabelle Korneel Xasan Dhiciso Xasan. farxada ii tahay maanta inaan joogo Burdacaar waxaan kamid ahay raggii ugu horeeyay markii la soo galay Burdacaar aan kamid ahay hogaaminaysay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada isku xureynta deegaanka anoo yaraan waxaa maqli jiray warsangeli qabiil waa dhaafay qaran waay marka maanta waxaa qira warsangeli inuu qaran yahay sababtu waxay tahay waxaan joogay wargaadhi geel badan oo ku wareejiyay waxaan joogay cali guduud maantana waxaan joogaa Burdacaar marka hore waxaan ka mahad celihaa xoolihii la keenay geeli aad noo keenteen waan idinka guddoonnay waxaan leenahay maada idinka gaarto waan idinka mahad celiynaa waana ku mahadsantihiin biryahan warsangeli oo dhanaa geela saas u keenayo noogu wareejaayay adinkuna maanta hadda lafta warsangeli ka mid oo geel noo keentay waa geesaale ayadana waxaan leenahay maada ka gaarto waan idinka mahad celiynaa geel fiicanaad noo keenteen abbaanka jirbaa cawri geelan waaweynoo weli geetalaaloo kalaahu marka geel waaweynaa idinka guddoonnay waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin waa idinka mahad celiynaa waxaa taas dheer sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay nabadoonka deegaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Cadalle. intaano maxuu ahay qaraabada isugu imaama karin marka raggii dawladda ayo noo soo gurmarto horta awalan marka hore aad iyo aad u mahadsan yihiin
anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale oo maxaa maamulka Cadale wakiil ka ah sidaasaan halkan ku imaday marka waxaan idin sheegaa dhulkaanu tuuladan iyo tuulooyinka ku xeeran male caafimaad male MCH male maxaa waxay quudinta caruurta male wala ay leedahay horta male dawladda iyada waxaan ka codsanaynaa horta meeshan in laga soo gaaro si degdeg ah maxaa ahay loogu qabto tuulooyinkan iyo nawaaxigeeda in si degdeg ah wax loogu qabto waxaa ahay wax yar hore waa noo soo gaartay dawladdu waa ku mahadsan tahay laakiin haddana aad iyo aad ay baahida dadku haysa dadkan uma helin 15 sano walax oo maxaa ahay wax gargaara ma aysan helin dawladda kama aysan helin niman khawaarij xoog isaga heestay marka maadaama hadda dadkii ay xur noqdeen oo maanta wax kasta loo keenin karo waxaan codsan horta dawladda waxaan ka codsanayaa inay maxaa iyo hay'adaha gargaarka inay meeshan maxaa ay wax ka qabtaan meeshan waxa laga dhawaajiyay inay iskool lahayn ay jaamacad lahayn ay daawo lahayn ay quud lahayn dawladda waxaan ka codsanaynaa inay waxyaalaha loo baahan yahay naga teekiriso na tilmaanto warkayna geyso warkayna uusan ahaanin mid meesha looga tegay aan codsanaynaa waxaad qabateenna waa idinka mahadcelinaynaa waxaa qaban doontiinna alla idin fududeeyo maxamed iite hirshabelle TV jowhar